السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا جيسي تولير تي في. ما أنت موضوع وحندورينا اللقى بصدو وموضوع أمبو محاك أراهماني وباهوين أصابير توحويان ريجبوتي لبعتك السنة قدام بي باهي داسيو وحويان بديقا وحي باهي آدلو وحويان ودوفتان بدن ay dadku ku qasban yihiin inay waddanku kaga soo baxaan ay waddanno shisheeye ku tagaan khaasatan qurbaha. horta maxaan yiraahdeen video horta kagama sheekaynayo maxaan ku yiraahdeenay anigu horta ma sii tafaasiilinayo fikradeyda waxaan ka dhiibanayo amba dadka aan influencing يوم معها لكن واحد دون يارتو فيديو كان عن لا شرقراني وحويان وباهي بدن تريجوتي أي سويديان سؤال بدن باهي بدن طالويان أي ريجوتي سويديان بريهن باهي دا سو محاك وراهيداني تو أي باهيهن محاك وراهيداني information إعلان سؤال أي سويديان قفك ريجوتي جيبوتي جوجا maanta Djibouti ka soo baxaya baahi doonta baa ka soo saarto inkastoo dhibaatooyin badan ay ka soo saaraan 10 sano ama 20 sano u dambeeyay sidee buu u degi karayaa qurbaha khaasatan Canada qurbuhu way ballaaran yihiin Yurub Australia amba Ruushka noqon karaysa wixii waddan laga baxo ku dhanbadeedo Djibouti inta u badan yihiin iyo maxaan ku raraa Canada iyo Mareykanka noqonaysa meena waxaan doonaa nila sheegareeyo haween oo maxaan ilaahay nila qaybsado waa qofka Djibouti yimid halkan wuxuu isku dhiibi karayaa maxaas la isku dhiiba halkan waxa la isku dhiiba uu ku degi karayaa qofka sharci ku qaadan karayaa waa 5 shay weeyaan 5 shay sidaan isku daba dhigay horta waqtiga iyo ku xiran tahay way isbedeli karaysaa mid baa maanta muhiim noqon karaya ka ugu horeysiyay kama dhigno kaas ba ugu muhiimsan kama dhigno laakiin waa waqtiga xaadirka imika ahaan maanta jooga uma nagala hadlaya oo qodobka maanta dhiibita dadku ay isku dhiibaan ee ugu fara badan ay dadkuna maxaa lagu qaablo weeyaan لكن هذه شخص ديب النقطة أم با توماس دي ديب النقطة وحد عي كريسا إن موضوع كلاته أم با محاك القضب كلاته وقدم بيا أم با دحدا عندي إن وهوري لها موقتي حلقة شنطة قضب إني لقيب سمعنا وحويا إن شاء الله دولاني جالسيو وشنتي أنواركي تذكري جبوتي Djibouti ka imanaya ay isku dhiibi karayaan ay ku degi karayaan sharci ku qaadan karayaan shanta qodob waxa ugu horeeya qodobka ugu horeeya waxa weeyaan Djibouti waxay isku dhiibaan oo waxa la iraaho wadan kalka ka soo tagaysid dhibaatad sheeganaysa dhibaatada aad sheeganaysid oo nabadgelyo weydiisanaysa wadan kale waa ta ugu horeysa la isku dhiibo nabadgelyada waa nabadgelyo أمان بنقول كريسا ضدك معارض يسكون ديبان واحد نقول كريسا الشخصيات بنقول كريسا محاكو راهيديني دمرك أدان سوقاتو وان الدلاب إيراهان وجيبوتي أدي بد دمرك لوح قرابة إيراهان وضيقا يقول حما سيدن بالي سوق لي أم بالي كبصدي وحياة بدن بشكتان أم بالشخصيات كلها حاجرة جيبوت واللي عنصريين جيرو ورانا قلة يرو يربان هاي أدبال اللي يملون عنصريني قلة دونا بهذا حلقة وحنا هاي ضد حنا كلها حقري جري جيبوتي حقوقنا كمان لهين حلقة تاس بكو ديستا شرعة أو تاس واحد سوق لساون قلب كي محن كورا هيدا نبت جليدة قف كوي ديسني وضك كندا iyo hadii kala ku inkastoo aad buu yirihiin halkan laakiin waa waxyaabo jira hadana qowmuluud bal isku diiba oo maxaan
oo maxaa ku raahaydanay waa waxyaabo la isku dhiiba halkan way jirtaa oo la aqoonsan yahay waa qodobka weeyaan ka ugu horeeya ka nabadgelyo ka weydiisanaysid Canada qodobka labaad waa qodob kale sagna 10 sano ugu dambeeyay ay reer Djibouti waxaan malaynayo 15 sano ugu dambeeyay reer Djibouti aad ay u barteen waa qodobka Canada ay ku caanbaxday ayna dadweynaha maxaa ku raahaydanay ay tusaale u noqotay waa dadkan ay soo qaadanayaan ay ku soo qaadanayaan amba shaqo ahaato amba ahaato in shaqo ka heli karaya wadanka oo taas waxa la yiraahdaa waa immigration-ka ay iyagu soo dadkan ay soo doorteen baa la yiraahdaa qalan Franciscana waa immigration choisie taas waa imika maxaa ku inkastoo waxay ku xiran tahay hadba qoladii haysa Quebec bay ku xiran tahay kuwa maanta hayana waa kuwa iskeer adag weyn aad buu adkeeyay qodobkaas waxa kaloo jira qodobka saddexaad ee la isku dhiibo of reer Djibouti ee dhulka ay imanaya halkan isku dhiibi karayo waa maxaa ku raahaydanay waa qof amba dad halkan u joogan family ahaato qofku doonaba ahaadee laakiin la soo damaanad loo damin qaadanayo oo la soo sponsor gareynayo halka lagu keenayo qodobka afraad ee qofku dadku halkan ku degi karayaan amba sharci ku qaadan karayaan waxa weeyaan dadka tacliin amba dugsi amba jaamacad u imanaya ee kolkay dhamaystaan kadibna shaqo helaya ee weydiisanaya Canada inuu dego ee la qaabilay كشناد وحويان وقضب أدب اللغة تجيمك ماها مدعانا والصعدة وقت جن إمكان حاضر كسجالة طبنكا لابد يكون سجالة طبنكا و ريجبوتي بديجا وضد محاك وراهديني أصلهان والصومالي ويان كستقار بدنو كستو صومالي لما وضع أهم لكن عفرنا وجدتها xiliga Soomaaliduna waxay reer Djibouti waxay sheegtaan dhibaatooyinkii ku dhacday wadanada jaarkeena wadankaas Soomaaliya khaasatan ku dhacday ay sheegtaan oo Soomaali isku dhiibaan dadka canfartay walaalihiin eegna waxay isku dhiibaan Eritrea isku dhiibaan eegna dhibaatooyin baska wadan waxa weeyaan dhibaato afar 30 sano ugu dambeeyay dhib weyn lagu soo hayay dadka weeyaan xiliga shanta qodob ee ni soo sheegay baa isku dhiiba halkan videogan waxaan ku koobayaa bas waa qodobada aan soo sheegay iyo su'aalaha badiga dadku ay isweydiiyaan ay rahaan qofka reer Djibouti ee Djibouti maanta jooga ku yimaado Canada muxuu isku dhiibi kayaa waa shanta aan soo koobay insha Allah sida ay kala horeysiina waa sida ay maanta ay tahay weeyaan iyo sida ila eg tahay aniga khaasatan waxa dhici karaysa qaar badan oo degan halkan inay u leeyahay weydo fikradaas sida aan kala dhigay malaki waa sida ani ila eg tahay ay dadku ay maantana waqtiga socda ay tahay weeyaan videoyaasha dambe insha Allah soo socda waxaan doonayaa qodob inaan qaato iyo sida ni hadi lahaa amba ni caawin lahaa qofka jooga qodobka doonti isku dhiib inkastoo waxa jirta qodobo aan maxaan ku rahay diin ahaan ba aan oran karin badorta waxay baa iska jira taas horta uma maleeyna ka hadlayo wax maaha shakhsiyan de arag sama damiirka amba diintuna hayo gashayna maaha waxaan la qaybsanayna ma aha waa wax jira laakiin qodobka baan ka boodaya laakiin inta kale insha Allah waxaan doonayaa inaan siiyo tusaalo iyo waxyaabaha u baahantiin intaan iman Canada si aad isku soo diyaarisiin ku ka timaadin inagoo diyaara inkastoo sharcigan ay badiga dadku qaateen ku doonaba ahaado ama aniga bayga wax nasiib iska yahay badiga
laakiin qaar waxa haddaad laakiin soo diyaarisid waxaa dhici karaysa inaad chance kaaga badisid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.